Barasaabka gobolka Sanaag Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa deegaanka Ceeriyaan ee degmada Ceerigaabo wuxuu maanta caruur agoon iyo hooyadood guddoonsiiyay dhul deegaameed dhan 10 hektar. Dhulkaas oo ah goobtii muddo ka badan hal sano ka hor lagu dilay marxuum Cawil Cabdullaahi Jaabiri. waxaana milki ahaan si sharci ah dhulkan iska lahaa isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka Sanaag Ismaaciil Saalax Cabdi kaasoo u gartay xaaska iyo caruurtan agoonta inuu siiyo dhulka maadaama uu aabahood lagu dilay halkaasi. waxaana munaasabadii agoontan iyo hooyadood lagu guddoonsiiyay dhulka oo ka soo koob barasaabka gobolka Sanaag ay goobjoog ka ahaayeen ehelada marxuumka madaxda ciidamada qaranka madaxda hay'adda DDG isuduwayaasha heer gobol ee wasaaradaha beeraha horumarinta deegaanka iyo xanaanada xooluhu madax dhaqameed iyo waayeel waxgarad kale dhalinyaro haween iyo dadweyne kale oo tiro badaniba ugu horeyn hadal kooban ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka Sanaag Ismaaciil Saalax Cabdi. waxaan wareejay qayb aan ku lahaa dhulka la yiraahdo Daraale oo degmada Ceergaabo ka tirsan tuulada Ceeriyaan ku dhow 10 hektar oo aan ku wareejay agoonta Cawil Cabdullaahi Jaabiri anigoo eegaya agoonnimada gurigoo ahaa kii aabahood lagu dilay iyagoo aad ugu baahan islaam iyo wax taageero darteed ayaan sidaas ugu wareejiyay. isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Sanaag Maxamed Degal oo ah mas'uulka cabirka saaray dhulkan ayaa wuxuu halkaasi ka akhriyay warqad cadeynaysa in milkiilaha dhulkani si waafaqsan sharciga dhulkiisan ku siiyay agoontaasi. u socota wasaaradda beeraha gobolka Sanaag ujeedo kala wareejin haddii aan ahay Ismaaciil Saalax Cabdi waxaan halkan qoraalkan ku cadeynayaa in aan dhul aan ku lahaa meesha la yiraahdo Daraale qayb ka mid ah oo cabirkeedu dhan yahay 10 hektar aan ku wareejiyay dadka hoos ku qoran. kow Shacayb Cawil Cabdullaahi Zakariya Cawil Cabdullaahi Shacab Cawil Cabdullaahi Shaafici Cawil Cabdullaahi iyo hooyadood oo ah Aamina Xasan Cige. sidaa darteed waxaan wasaaradda beeraha gobolka Sanaag ka codsanayaa in dhulka isaga ah kor ku xusan loo aqoonsado dadka kor ku xusan. sidoo kalena isuduwa Degal wuxuu intaasi ku sii daray wasaaraddu laga bilaabo taariikhda aan halka taaganahay waxay dhulkaasi u aqoonsatay ilma Cawil Cabdullaahi Jaabiri. Axmed Maxamed Xaashi oo ah chief caaqilka beesha deegaankan Ceeriyaan oo dhexdooda dilkan ka dhacay iyo boqor Maxamed boqor Axmed Cali oo iyaguna fagaarahaasi ka hadlayay waxa hadaladoodii ka mid ahaa anigoo ah chief caaqil Axmed Maxamed Xaashi agoonta caaqilkoodii ah waxaan marxaati ka nahay inuu Ismaaciil Saalax Dajaafo isna qoyska kamidii uu ku wareejiyay dhulka agoonta oo aabahood ka dhintay siiyayna gurigii lagu dilay. waxaan halkan uga mahadnaqayaa maanta Ismaaciil Saalax oo bixiyay dhulka kan aanu hadeer joogno kana maqlayno codkiisa uu ku bixiyay. waxaan kaloo u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo runtii soo afjaray maanta shaqaaqadii Ceeriyaan ka dhacday noocay u ahaydba ayna ugu dambeysay qabiilkan Maxamuud Xamuud gudahooda arrimihii yaalay oo maanta halkan ku gabagaboobay agoonta iyagana samir iyo iimaan aabahood Ilaahay ka siiyo. Cabdalle Faarax Aadan oo ah mas'uul ka socday hay'adda DDG ayaa isaguna wuxuu yiri waxa aan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka cuqaasha waxgaradka taliyaasha qaybaha amniga juhdiga weyn ee ay u soo galeen ay soo afjaranto murankii ama shaqaqadii ka taagneed Ceeriyaan. waxa isaguna dhinaciisa halkaasi ka hadlay abaanduulaha ciidamada qaranka gobolka Sanaag Gaashaanle Cabdullaahi Soofi. waxaan maanta joognaa Ceeriyaan Ilaahay baa mahadleh koowaad leh mahad labaad waxaan u naqayaa Ismaaciil isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha oo maanta halkan ku guddoonsiiyay agoonta aabahood halkan lagu dilay dhul dhan 10 hektar. marka waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka iyo intii kale kala shaqeysay inay shaqaqadan ay soo afjaranto. ugu dambeyn waxa fagaarahan ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax. waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa in hawshaas ay naga soo dhamaatay agoontana waxaan u rajaynayaa in reerkii dhaqma ee dhisma Ilaahay ka dhigo. aad iyo aadna waxa mahad dambe leh Ismaaciil oo naga garowsaday codsigii aan u soo jeedinay isagoo 75kii beerta ku lahaa milkiyadiisa caruurta yaryar ee agoonta in si toos ah ugu wareejiyo. waxa kale oo u dardaarmayaa jaarkooda inay ilaaliyaan agoonta. gabagabadiina barasaab Ramaax agoontan iyo hooyadood halkaas wuxuu ku guddoonsiiyay lacag dhan $2,000 oo isugu jirta aaskii marxuumka iyo qayb kamid ah magtiisii. waxa mahad dambe leh agoontan halkan ku guddoonsiinay dhulka iyo aaskii iyo qayb kamid ah xaqii ay lahaayeen ay yeesheen. Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga Odweyne News magaalada Ceerigaabo.